وزير الدولة وزارة عافيمادka Somaliland محمود آدن جامع iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa galabta soo gaaray magaalada Ceergaabo waxaana wafdiga wasiirka galbeedka magaalada Ceergaabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka mas'uuliyiinta bahda caafimaadka ee gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo dadweyne kale ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay kuna soo dhaweeyay wasiirka magaalada Ceergaabo agaasimaha cusbitaalka Ceergaabo isuduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag madax dhaqameed maayirka degmada Maydh iyo xubno kale maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka oo safar dheer u soo galay runtii si uu uga qayb galo xafladii furitaanka dhismaha cusbitaalka iyo waliba mashaariic kale oo runtii ay hay'adda SDF fulinayso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka waxa maanta farxad noo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno wasiir dawlihii wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Ceergaabo gacmo furan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay mashaariicda noo wadaan iyo soo dhaweynaynaa wafdida uu wasiir dawlaha oo uu kamid yahay isna la socdo gudoomiye gobolka oo isagu muddo safar ugu maqnaa hawlihii shaqaqooyinkii ceelaf weyn waxaan aad ugu faraxsanahay maanta hadii hawshii SDF ay noo bilaabantay wasiir waa ku soo dhaweynaynaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Sheekh Axmed halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiir dawlihii caafimaadka oo sida uu sheegay markii labaad uu noo yimaado ay tahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir iyo gudoomiye gobolka oo ka shaqeynayay hawshii shaqaqooyinkii ceelaf weyn oo hore u soo raacay intiina waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay saacada wasiir ku soo dhawow guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada madaxdiisa Ceergaabo iyo dhaablo imka ah xaafad ka tirsan Ceergaabo waxaan leenahay aad baan ku soo dhaweynaynaa anigu muddo bil iyo barka kooban ama ku dhow waxa aan joogay area ceelaf weyn oo shaqaqadii iyo hawlgalkeedii baan in badan ku jirnay meel oo cabay martay aad bay u fiicnayd intii hore shalayna meel kale aagiiba ay wax kale ay ka dhaceen saad ka warqabtaan go'aamadii wasiirada qaranku ay sameeyeen ee go'aanka yani sideedii u wada fulayeen dhamaantoodba waxaba yaraatay hawsha iyada isortaagi karaan ma jiraan biidbillaahi waxa la faraynaa inay u hoggaansamaan nabadda beelaho hadii la ka dhigayo kii u hoggaansami waayeen la bari maayo qoorta la kala jibinaya cid la bariyo oo maalinkan maanta ah ciidankuna waa ku filan yahay awoodiisu in ay meelaha iyo meel kale badanba ay insha Allah waxaan leenahay walaalaha dirirtu ay dhex martay bahasho ay soo noqoto inkastoo aagii hore iyo familiyadii hore aanay ahayn war hal la joojiyo oo bahasha Ilaahay ka baqo oo dhibaatadu halkeeda ku ekaato gabagabadina wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Somaliland Maxamuud Aadan Jaamac ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkiisa uu ku yimi magaalada Ceergaabo aad yaan idinku mahadnaqayaa soo dhaweyntan diiran ee gacaltooyadu ku jirto ee wada shaqayntu ku jirto waa markii labaad sida loo sheegay aan halkan imaado waxay taasi muujinaysaa ama ka turjubaysaa culayska iyo dardarta iyo awood xukuumadda Somaliland jamhuuriyadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay gobolkan saartay iyo priority-ga halka ay ka joogto gobolkan uu ka joogo mashruucan aan halkan u imi maanta maaha SDF waa iskaashi dawladda Somaliland iyo SDF shaqa aanu wada qabanayno oo aanu halka ka fulinayno waxa weeyaan budhigii cusbitaalka Ceergaabo waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan gudoonsiin doono ambulaansyo ka yimi dawladda cusbitaalka Maxamuud Aadan Jaamac wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Somaliland waxa uu ka hadlay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka Sincanro ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana uu digniin u diray dadka deegaanadaasi ceelaf weyn dhibaatada ka dhacday aan dadka ugu baaqaya dadkan walaalaha ee wada dhashay aan ugu baaqaya dagaal iyo colaad nin baa ku dhintay nin kuma dhasho waxa laga dhaxlaa waa waalid goblama waxa laga dhaxlaa gabadh weer sidata waxa laga dhaxlaa cadaab mudash iyo cuqubo Ilaahay ka baqa colaada joojiya iyaan faraya sida gudoomiyuu sheegay hadii sida la yeeli waayo gacan bira oo adag iyo dawladdu si sharciga waafaqsan wax uga qabanaysaa iminkana uga qabatay Ilaahay dadka qulubtooda haysu soo jeediyay baan leeyahay intaasi kadibna waxa wasiirka iyo waftigiisa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo